barnaamij kormeer isbuucan wuxuu soo kormeeray xarun wax lagu baro carruurta danyarta ah oo ay wax ku baraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo isxilqaamayaal ah kuwaas oo kamid ah dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha Soomaaliyeed oo waqtigooda qayb kamid ah siiyay dhalinyaradan Soomaaliyeed si iyaguna u noqdaan kuwa hiigsado nolosha way dhalinyaro kasta ma helaan nasiibka ay u heleen dadka wax bartay dhalinyaradan marka waxay baranayaan cilmi qaybihiisa kala duwan sida xisaabta tarbiyada Ingiriiska iyo Soomaaliga waxayna wax ku bartaan dhalinyarada Soomaaliyeed ayadoon oo iyagu qayb ka ah barnaamijka kormeer ayaadna ku daawan doontaan oo qaybihiisa kala duwan ay ka mid noqon doonto maamooyin iyagu ka hadli doono iyo carruurta la tirkooda iyagu soo dhaweynayo waxbarashada la siiyay dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa sameynaya isku dayo ku aadan horumarinta carruurta danyarta ah ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ayadoon waxa uu ka mid yahay ururada dhalinyaro ee ka qayb qaadanaya dadaalka waxbarasho oo jiil badan aysan fursad u helin waxaana ururkani uu waxbaraa dad waaweyn iyo carruur yar oo ku nool kaamam ku yaala Muqdisho iyo duleedkaba haddaba maxay qabtaan ururkan waxa lagu magacaabaa ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ayadoon hadafka iyo ahmiyadda aan ka leenahay in dhalinyarada Soomaaliyeed aan wax barno dib aan u soo celino waxbarashadii Soomaaliyeed oo tani dawladii hore Maxamed Siyaad Bare aysan jirin in dhalinyaro Soomaaliyeed oo waxbarasho free la siiyo kale inaysan jirin sababaha ururkeena aan u aasaasnayna waxa kamid ah inay waxbarashada ay dib u soo noqoto horta ururka marka hore waxa la aasay 20 May sanadkii oo hadda aan soo dhaafnay oo ahaa 2017 ujeedooyinka ururkan aan u aasaasnayna waxa kamid ah in waxaan aragnay dhalinyaro ilmo carruur oo fara badan oo aan haysan waxbarasho oo guryahooda iska joogo iyo mararka qaar markaad dhex socoto magaalada waxa arkaysaa arday u socoto iskuulada iyo kuwa aan haysanin xataa waxay ay cunaan meel ay kaga gabaadsadaan oraxda maalinta dhacaysa qabowga habeenka dhacayo taasna anaga awood ma u leeyahay inaan aan buuxino barnaamijyadaas aad ku fara badan laakiin markaan is arursan anagoo ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku nool Muqdisho oo dhigta jaamacadaha qaar kamid ah ee Muqdisho ee ku yaalo waxaan garwaaqsanay inaan isu imaano aan waxbarasho waqtigeena qayb kamid ah aan u goyno dhalinyarada Soomaaliyeed waxbarasho aan haysanin ma sha Allah hadda waa ku guuleysanay in kaamo fara badan aan ka shaqeyno waxaan 9 bilood horta ururka shaqeynaya waxaan ka soo shaqeynay duleedka magaalada Muqdisho qaasatan Garas Baale iyo Dareedisho kaamo ku yaalo waxaan arday fara badan af Soomaaliga iyo xisaabta iyo Ingiriiska aan soo barnay marka waxaan dib ugu soo noqonay Muqdisho oo ahayd goobtii basigeena ah oo aan ka aasaasnay ururka xafiis oo noogu yaala Muqdisho laakiin ma jirto meel gooni oo hadda si gooni aan u deganahay laakiin qayb kamid ah waqti maadaama waqtigan anaga xataa oo yariya waxaan garwaaqsanay qayb kamid ah aan u jarno dhalinyarada ururkan waa carruurtan faraha badan leh oo aan haysan waxbarasho hadafka qofka bini'aadamka waxa ku dhalin karo markuu asiga soo arko baahida ay leedahay waxbarashada hooyo kasta oo Soomaaliyeed waxay jeceshahay cunugeeda inuu waxbarasho u aado hooyo kasta oo marka anaga wax nala soo baray waxa lagu garaaci jiray inaan dugsiyada aadno in iskoolada aadno taasi waxa alxamdulillah anagana Ilaahay faankaas na geliyo oo maanta aan ka qayb qaadanayno inaan ardaydan aan wax barno ma jirto dad oo garab nagu siinaya inaan qaabkan aan u shaqeyno laakiin dhalinyaro waxaan nahay isu tagtay oo magaalada Muqdisho ku nool waxaan sameeysanay qayb macallimiin oo aan u dirno goobka waxbarashada qayb oo noo soo arooriyay xagga financiga inkastoo aysan jirin financing weyn oo aan haysano laakiin qofka saaxiibkay oo kale iyo jaamac markuu ila joogo Faarax markuu ila joogo Caalamka ila joogo kale aan leeyahay war Caliyo war Faaraxo neew $1 laga helo bishii oo kale $2 laga helo si ardaydaas aan u caawino waxaa jirto ahmiyadda ugu weyn oo xagga waqtiga iyo xagga financiga iyo xagga security marka meel tagayso kale waxa lagu leeyahay dadku waxay ka aaminayaan in adiga project aad ku qaadanayso barnaamijkan oo kale laakiin waxa uu sheegi lahaa dadka Soomaaliyeed inaysan project aysan ahayn in barnaamijkan aan ku heleen anaga xataa faa'iido noogu jirto ujeedada efficiency aan ka leenahay ayaa ah in dadka Soomaaliyeed ee wanaaga qayb kamid ah ay arkaan oo qaabka anaga maanta waxa uu wadno kale ee walaalahooda oo ay ku caawiyaan oo dhalinyarada Soomaaliyeed waxbarasho haysan waxaan u sheegi lahaa qof kasto aniga ila mid ah oo ku nool magaalada Muqdisho in barnaamijkan oo kale oo aaso si waxbarashada dib loogu soo celiyo ururka ayadoon ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ayadoon wuxuu bilaabay barnaamijkani dib aan idin xasuusiyo 2017 muddo ugu yaraan 10 bilood ama 9 bilood hadda barnaamijkan waa wadnaa caqabado fara badan wayna la soo wajaheen oo ah in macallimiintii ay u direen kale in ayaga xataa waqti ay waayaan laakiin waxay ku dhabar adeegeen oo aan ugu mahad celinayaa
inay barnaamijkan si wanaagsan nagala qayb qaateen sidoo kale waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha ururka iyo anigoo afhayeenka iyo Suleeqo oo xogayaha ururka ah iyo macallimiinta halka meesha nagula sugan waxaan mahad celin gooni oo kale aan u sheegayaa dadkii naga garabsiiyay inaan kaamkaan ardaydan aan wax ku barno qol free halkaan na siiyay sidoo kale kaam kale oo laba kaam hadda aan ku leenahay Muqdisho waa kaamkan badbaado khaasatan qaybtiisa tawakkal laakiin kaamka badbaado uu weeyahay qaybtaan ardayda u wada imaadaan iyo qayb kale aan laba iskuul ee noogu taalo kaamka horseed oo laakiin iskuulka dhibaatigiisa aan ka dhigano xaafadda Xero Ruush si waan qayb maadaama ay kaamka qaar ay hay'ad ay haystaan waxa si oo garab iskriixa oo kale aan lagu diiday laakiin si free hadda ardaydaas wax waa ku barnaa ma sha Allah ardayda qaar wax way barteen Soomaaliga aad ay u qorayaan xisaabta aad ay u qorayaan sidoo kale Englishka aad u yaqaanaan waxay ku leeyihiin ka soo qaad maalin hore anigoo hor fadhiyo masaajidka Sheekh Ali Suufi waxa arkay wiil yariis oo wato shaarka dugsiga dhexe oo jaalaha ah shaarka jaalaha ah marka waxaan dhahay niyo baalasho loo ahay marka waxaan dhahay kaale adiga iskuul ma dhigi jirtay way igu burburo ilaahay isku wiilka waa qornay waxa geena qaybtaasi oo Xero Ruush marka waxaan rajay lahay ama aan ugu baaqlahay dhamaan dhalinyarada Soomaaliyeed wax baratay sidii waalidkooda ay u jecel yihiin inay wax bartaan ay waalidkan u jecel yihiin inay carruurtooda wax bartaan micnaha aayadoon waxa waa in la raadiyo aayaha Soomaaliya hadii la fasiro aayaha Soomaaliya la raadino aayaha Soomaaliya goorma raadi karnaa aayaha Soomaaliya waxa raadi karnaa waa inaan helno dhalinyaro taagan wacyi gashan oo maskaxiin ka dhisan wax aqoon ahaan ka dhisan anaka ruuxina aqoonteena kobcino markaas waxaas dhan aan qabano hawsh qabano waxa noo suurta gali karta waa inaan helno dad dalka sare u qaada waayo sida ogtihiin dalka waxa burburkiisa ka qayb qaatay aabayaalkeena taasi shaki kuma jiro dalka waxa burburkiisa ka qayb qaatay aabayaasheena marka waxaan diyaar u nahay hawshii aabayaalkeeni ay sameeyeen mid ka duwan inaan sameeyno anaka oo ah inaan dalkii dhisno dhalinyarada Soomaaliyeed oo waligood ku hamin inay dalka dhisaan ay ku hamiye kaliya inay dalka burburiyaan ama ka tahriibaan waxa tusaynaa tub wanaagsan oo ah in meeshaan inay tahay meesha kaliya aan barwaaqo ku gaari karno sida ognahay dalalka u horumarsan dunida waxa lagu tilmaamaa Mareykanka iyo Ingiriiska waxa hubaala dalkaasi inuu ku nool yahay qof cunto helin oo xil walba cunto heli karin taas waa hubaal laakiin waxa hubaala inay ku nooleen qof wax barasho la'aan inay ku nooleen meeshaas iyo qof caafimaad la'aan oo kaliya ay ka fikirtay dawladii ku faaneed inay hormartay ka fikirtay say maaragtay caafimaadka bulshada ay u wayn lahayn yey weyn caafimaadka yey wax barasho weynin meeshaas marka waxaan ka qaadan karnaa inay tahay wax barashada waxa kaliya oo dal dhisa sumcadna keena inay tahay wax barashada in wax la barto oo wax ka wanaagsan jirin because of hadii dalka ugu horumarsan Mareykan leeyahay oo dad baahan ku nool yihiin laakiin laga waayo dad wax barta oo haddana horumarsan yahay maxaa meesha ka cad oo ah inay tusaale cad u tahay inay wax la barto wax barashadana waxay imaan kartaa markii la helo dad wax bara micnaha anaka waa geli karnay ururkan waa aadaf kale waa laga lahaa karo ah in meel kale la aado balse waxaan dareennaa had iyo jeer dareennaa in aayadoon ay ku fiican tahay inay dadku wax barto oo adag tahay inay bulshada Soomaaliyeed ama yar tahaba ay maanta Soomaaliya ka jirin urur saano kale inuu isku aasay ama isku taagayo dad wax baray oo waqtigooda cunay laakiin ay jiraan dad siminaar qabtaan waxyaalaha noocaas ay jiraan laakiin ay jirin qof waqtigiisa qaaliga wax dunida u qaalisan waa waqti dunida wax u qaalisan waa waqti wax yar ninka dunida u lacag badan waxa la Bill Gates Bill Gates waxa la lahay maxaad dadka dheertaa micnaha dadka kale maskiinka adig maxaa ka simantiin wuxuu dhaa waqtiga ka simanna wuxuu dhaa sida aniga saxda ah waqtiga uga faa'iideystay hadii maskiinka uga faa'iideysto waxa hubaala inay gaari karaan mid ani iga sareed gaari karaan marka meeshaas waxa waqti wax ugu qaalisan inuu yahay waqtiga meeshaas ka cad marka warka waqtiga hadii wax ugu qaalisan yahay anaka marka waqtiga wixii ugu qaalisan waxa siin dadkeena ina dadkeena wax barno xilliga khamiiska jimcaha oo anaka firaaqo leenahay ina dadkeena wax barno xoog gale ay aan ku wacyi gelinayno
inay maxaa la yiraahdaa in ay ka qayb qaataan horumarka dalka inay shaqo ka dhigtaan inay cibaado ka dhigtaan in dadka wax loo qabto in nafsadooda wax u qabtaan maxaa yeelay maslaxadaada gaarka ah waxay ku jirtaa maslaxada guud marka waxaan dadku ugu wacyigelinaa in ay dadku waxaan ku wacyigelinaa inay ka faa'iideystaan kheyraadka dalka oo maxaa yeelay waxaan ku noolnahay dal hodana laakiin dadkiisu aanay hodan ahayn oo qalbiga aanay hodan ka inaan dhihi karo inkastoo ay jirto dad u dhabar adeegay xaaladda dalku uu ku sugan yahay jecel inay wax ka qabtaan aan u mahad celinayo ururka waxaa jiro markii aad shaqo bilaabaysid waxyaabaha aad filinaysid oo ugu horeeya waxaa waay caqabadahaas ka ururka aayadoon ahaan waxaanu ka dhiganaa waxyaabihiina xoojin lahaa oo aan cashirkaana ka baran lahayn si aan guulahan higsanayna aan u gaarno mar walba aad guul higsanaysidna waxaa loo baahan yahay caqabadaha ka hor imaanaya inaad jirtid oo aad ka dhigatid waxyaabo cashara waxaan aad ugu faraxsanahay inaa soomaalida badi waxaa la yidhaahdaa percentage 75 in ka badan ama 73% in dadkeedu ay dhalinyaro yihiin haddana ay ka qayb qaadanayaan si xoogan burburinta iyo maxaa la yiraahdaa dalka si dib loogu dhigi lahaa laakiin aayadoon waxay muuqaal fiican u tahay ay sawir kala siinaysaa in la arko dhalinyaro u heelan inay dalka wax ka qabtaan dalka wax u qabtaan aad ugu faraxsanahay inaan xubin ka noqdo waxay ii tahay fursad dahabi ah ii tahay marnaba aan caadi ahayn waxaa jirta caqabadaha badi markii aan wax barayno na soo wajaha in kaamamka oo kaleeto aan ka shaqeyno inay tahay in boos nagala siiyo oo marar badan aan sheegay in kaamamka aanu u shaqo tagno in la dhaho kaleeto hay-adaa ku haysata kunturaad hay-adiina ay 2,000 oo caruura in ka badan in kaamku ay ku nool yihiin haddana 40 camal ay sambal ahaan kaga qaadato ay wax barto anagu waxaan sameeynaa inaan kaabno dadkaas inaan wax u barno inaan wax barno dadkeena gaar ahaan anigu si gaar ah ii taabanaysaa hawshan mutadawacnimada maadaama aan canshuurta dalka wax ku barto ay tahay inaan wax celiyo waalidiin Soomaaliyeed ayaa ka mid ah dadka u arka jaanis dahabi ah in iyaguna wax bartaan caruurtoodana wax la baro meesha ay doon wax ku baranay noo imaade oo u mahad celinaya ani ilmahaygu waa waxbarasho ku jirna حمالي يعني واسكح مالنا واحد ومهدينا أيضا إنا مالنتي خميس إيو الجمعة دي وحبرشة شغلة أضافة أنت سو مهد علينا وأنكم هسنتين بركعياش حرادة بتبادو ولا سود جاي لابد كنت من إكوجي أيان أهان الماء إذا كداد وجدان والمهي بتبادو وحكل أشتي وحيجو يريهين لكاني سيد هذا دت كانيتي وين دي أوجدت ayagoo yar la keenay waana ku qaangaareen iskuulna waxa loogu bilaabay xiradan badbaado iskuulay dhiganayeen anaa ka koowa qofta dhigaysay maadaama iskuulkooda la burburiyay maantana ilaahay nagu guuliyay in haddana loo soo gurmado fadhigooda loogu yimaado ururka dhalinyarada aayadoon ay ilaahay noo keeno oo nagu kaalmeeyeen oo nagu caawiyeen marka hore waa u mahad celinaa marka labaad waxaan u mahad celinaa gudoomiyaha degmada Dharkiinle oo ogolaansho buuxda ka helnay asagana aad iyo aad u mahad celinaa gudoomiyaha Cabdiraxmaan Macalin aadna waa u salaamaa manoo saamix lahayn in wiilasheeda dhalinyarada ay imaadaan ilmahana igu kaalmeeyaan waxbarasho aan la iga ahaayeen dad dan yarna ay degan yihiin meesha dadkii loo rabay in la kaalmeeyo booskooda waa soo buuxiyeen ajarna waa ka helayaan alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahayna waa ugu gargaaraa weli waxaan sii codsanaynaa haddii oo dad dan yar loo kaalmeynayo haddii gudoomiyaha degmada Dharkiinle uu yahay haddii gudoomiyaha gobolka Banaadir uu yahay hadda uu ku celcelinayo inuu wax u qabto dan yar ama barakacayaasha soo wax u qabto dadka koowaad oo wax loo qaban ay fursad ku waayeen badbaado kaamka tawakal waa xaqiijina cabsi iguma jirto waa xaqiijina waa ku baaba'een waxbarasho la'aan ku dhacday haddii hoy ahaan lahayd waa arki waa duubi kartaan xataa hooyinka hadda ay degan yihiin maanta haddii fursad goobjoog ay noo timaadeen waana ka warqabaan goobjoog dhowr mad ay noo imaadeen aweesana yaqaano wax badan naga caawiyay maraa waxbarasho saan camal noo timaaday fursad aan ku guuleysano waa weynay maadaama lacag meesha lagu aadayo la waayay gabdhihiina aysan dib noogu naqanin ilaahay waxaa noogu bedelay wiilal baari ah in ilaahay noo keena ilaahay noogu bedelay oo maanta indhihiina aad u jeeda markhaati ka tihiin
oon looga sheekaynin wixii meesha hadda ka dhacay idinkaba markhaatiyaad ka tihiin markaan waxaan leenahay wiilasheedii soo dhawaada intaan inka badan haddaa noo haysaan waa idin soo dhaweynaa gacmo furan ku soo dhawaadaan idin leenahay aniga ilmahaygaa ku jiraan dadkan baraka ninkaaniti ilmihiisa waa ku jiraan asaga naftirkiisa tan uu fadhiyo oo waxbarashada qayb uu ka yahay waaye marka anaga danyar oo u baahan in la caawiyaan nahay anigana waxaan ahay gudoomiyaha kaamkana waa ahay naftirkeega haddii caawinta waxbarashada qaybteeda inaan ka qaato waa rabaa meeshii aniga ooga baahanahay mar labaad mar saddexaad waa ka codsanahay ilmahayga inay naga caawiyaan goobjoogna waa u mahadcelinaa maadaama haddana calaf aan ku yeeshtay in haddana mar kale ay ka qayb qaataan ay ii imaadaan wiila iyagana qayb ka mid ah inay wax nagala qabtaan haddii alla kuu roonyahay waxbarashada anaga asaasiga anaga aan u baahanahay wixii naga kobcin lahaa weli waa sii codsanaynaa qaabkii qolka hadda anaga aan siinay qol ka sii fiican oo hadda dhinacaanayti gadaashiina hadda ku aadan yahay saan ugu dhisi laheen caawinaadeeda qof kasta waa ka codsanaynaa ilmaha naftirkood hadday helayaan degmada haddayaan ka helayno haddii gobolka banaadir naftirkiisa naga caawinayo goobjoogta naftirkeeda haddii ay nagu soo xirayso wax naga caawiya halka qol oo 2 qol camal uu noo naqana haddii ay naga caawinayso tafadal waxaan leenahay noo soo dhawaada ilmaheena inta hadda bilaaban inta dhamaystirka u baahan iyo inta la bilaabi doonaba waxaan idin leenahay hooyaal noo soo dhawaada noo imaada waan idinku soo dhaweynaynaa dhiirigelin xoogan ayay haystaan caruurtan ku nool kaamka badbaado oo ay wax baraan ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Ayadoon ingiriiska hadda hortaan ku hadli doono iskuulka Ayadoon waxaan loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed inay si ka daran wax u bartaan. My name is Khalid Mohammed Abdi. I live in Mogadishu, the capital of Somalia. I would like to thank every member of Ayadoon because they give us this standard and the hope of life. Even they show us the way of the dream. Before Ayadoon come to us, we were at home. Now we get chance to schools, let me say. caruurtan waxay khamiis iyo jimcaba qaataan maadooyinka xisaabta Soomaaliga tarbiyada iyo Ingiriiska waxaad wada daawateen barnaamijka kormeer oo ku soo qaadanay xarun lagu waxbaro caruurta Soomaaliyeed oo wax ku baraan dhalinyarada Soomaaliyeed oo isxilqaamayaal ah oo waqtigooda qayb kamid ah siiya caruurtan si ay wax u helaan una gaaraan mustaqbalkooda barnaamij kormeer ayaan ku soo kormeernay aniga maxamed iskoona in la socodsiinayay maxamed Saciid Taalin xagga kaamirada u yahay inta dib ugu doono waa bahda barnaamij kormeer oo leh sidaas iyo amaan Allah